waxaanu ka codsanaynaa golayaasha sharci dejinta arrintaa iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada ganacsatada Soomaaliland oo isku xilqaantay kuna midoobay in xal sharci ah loo helo muranka doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada xisbiyada mucaaradka ayaa soo saaray talooyin lagu xalin karo khilaafka waxaana ka mid ah ganacsatadaasi Xaaji Aadan Axmed Diiriye Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale Dahabshiil Cabdikariim Maxamed Iid Ismaaciil Ibraahim Axmed Maxamed Shukri Jaama Abdullaahi Carab Ismaaciil waxaana ugu horeyn halkaasi afka ganacsatada kaga hadlay Xaaji Aadan Axmed Diiriye Aadan Baradho waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaa halkan taagan guddi ganacsataa oo isu xilqaantay xal u helidda khilaafkii siyaasiga ahaa ee timi guddigii xabad joojinta sameeyey ahaa qoladii loo bixiyey EUda qaybna dhinaca kale iyana hawsha kaga jireen oo markii aanu sogaanay dabadna isu nimi isla garannay markaa inaanu dadaalka midayno maadaama hawshu mid qura tahay inaan laba meelood laga wado in dadaalkii la mideeyo oo guddi qura dabadna saa ku noqotay intii arrintu dhacday sidii hawsha ayaanu u wadnay waxaanu lahayn shirar joogtaa oon kala gool ahayn habeen iyo maalin dadaal badan baanu gelinay intii awooddeeda ah la tashi badan baanu samaynay arrintaa markii aanu si hoose ugu gondodegnay waxaa noo soo baxday in waxa la isku hayaa ee muranka keenay yihiin muran sharci oo arrin sharci ah waxa la isku hayaa sida awgeedna ay u baahan tahay xal sharci ah oo aanay ku xalismaynin xeer jajabkii dhaqankaynoo ahaa ee aynu arrimaheena ku dhamaysan jirnay marka caynkaa arrintaasi noqotay waxaa lagama maarmaan noqotay dee markay arrintu xeer noqoto Soomaalidu waxay tidhaahdaa garna garteeda lagu doonaa madheerna garkeeda lagu doonaa waxa xeerarka markay arrintu xeer noqoto xeerarka waxaan u leenahay hay'ado sharci baynu u leenahay oo dhinaca sharciga marka ay noqoto dee loo irkanayo oo xaggooda loo noqonayo marka waxaa lagama maarmaan noqotay in arrintii wixii anagu aanu xal u aragnay markaanu maskaxda tuujinnay la tashi badanna samaynay wixii aanu xal u aragnay oon u aragnay in arrintaa lagu furdaamin karo inaanu kula noqonno oo u celinno oo u gudbinno golayaasha sharci dejinta taasaa lagama maarmaan noqotay halkaa marka maraysa markaa waxaanu ka codsanaynaa golayaasha sharci dejinta arrintaa iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid inaanay ku eegin aragti kooxeed oo aanay arrintaa ku qaybsamin inay ku eegaan aragti qarannimo oo ay u arkaan halkii dalkan inay ka talinayaan waana dee dadkii loo egmaday oo maxaan ku dhahay hawlaha qaranka dee iyaga ayaynu u dooranno dadkii loo egmaday waa tihiin sidaa awgeed waxaan leeyahay oon kula dardaarmaya aada ugu adkaynayaa dhinacyada ishaya iyo dhaqan iyo maxaan ku dhahay ummadda Somalilandba shacbiga Somalilandba waxaan u soo jeedinaynaa inay golayaasha qaranka ee sharci dejinta ku taageeraan hawshaas iyada ah annaguna si ay sharciga u waafajiyaan wixii aanu xal moodnay waxaan u gudbinaynaa golayaasha qaranka marka iyagu waxaan ka rabnaa waxa si ay sharciga u waafajiyaan baan ugu gudbinaynaa Somaliland waxay ku nabad caanamaashay wada tashi iyo isu tanaasul tannatii kama maqna oo kama madna inagoo sharciga raacayna oo dee qaran baynu dhisaynaa sharciga laftiisana inaynu ku dhaqanno baranno u baahan haddana waxa weeye dhinac waliba ama cid waliba waa inay dhinaceeda ka dabcisaa arrinta oo ay ku qanacdaa halkaa wixii ka soo baxa si wada jirana loo taageeraa wixii qodobo aanu gaadhnay ee aanu xal moodnay
oonu isleenahay mushkiladda imika taagan waa lagu fardaami karaa mustaqbalkan waxbay tari karaan waxa qodobadeeda inoo akhriyi doona Masar Cabdirashiid Habshiil waxaa isna isagoo ku hadlaya afka ganacsatada ku dhawaaqay qodobada talooyinka ay soo jeediyeen ganacsatadu Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale Habshiil waxaana hadaladiisii ka mid ahaa annagoo ganacsatada isu xilqaamay sidii xal loogu heli lahaa muranka siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda waxaanu la tashanay khubaro sharci yaqaan shirar badanna waanu yeelanay waxaa noo soo baxday in arrinta la isku hayaa ay tahay mid sharci haddaba annagoo ka duulayna muhiimadda ay leedahay in golayaasha sharciga loo noqdo marka uu muran noocan oo kale ay yimaado waxaanu garannay inaanu talooyinkan u soo jeedinno golayaasha sharci dejinta qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada sababaha aanu ugu talinayno labada qodob ee aan sheegay ee in la isku sidko doorashada waxa weeye duruufaha dhaqaale ee maanta dalkeena ka jira sida abaaraha sicir bararka arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in aan u aragnaa sababta in la isku sidko in kharashkii bixi lahaa oo inaga yaraanayo halkii laba kharash inaga bixi lahaayeen marka la isku sidko uu mid kaliya inaga baxayo waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oo inuu si guul inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka oo dhan inagu amaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatana wadanka wixii aynu u baahnay inuu gelinay marka isku sidkanadu waxay naga yareynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina way inoo koobmayaan halkaynu 5 sano qabsanayno 3 doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsano laba doorasho ku soo ururino ayaa fikradan aanu keenay aanu aragnay dalka iyo ummadaba dan u tahay go'aankii maxkamadda sare ay dhawaan gaadhay iyo kaabista xeerarka golayaasha dejintu waxay kor u qaadaysaa sareynta sharciga iyo in la xoojiyo kalsoonida la siiyo hay'adaha sharciga dalka waxaana xal u noqonaysaa muranka iminka iyo mustaqbalkaba waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan haddii alla ka dhigo allah ma hadle ganacsatada Soomaaliland ayaa maalimihii u dambeeyay waxay si weyn isugu xilqaameen sidii xal looga gaari lahaa muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland